بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل كستoo joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkii wararka ugu dambeeyay caalamka oo maalin kasta aad ka maqashaan kanaalka YouTube ee Imaan Jaamac dhacdooyinka ugu dambeeyay falanqeyntooda ayaad maalin walba kala socotaan barnaamijka wararka ugu dambeeyay caalamka waa Isniin 13 Janaayo sanadka 2025 qodobada intaanu ku guda jirna barnaamijka aad maqli doontaan waxa kamid ah dadaalada uu Netanyahu bixinaya in xabad joojin laga gaaro Gaza iyo isdhaafsiga maxaabiista maxaad kala socotaa waa maxay sababta hadda uu Netanyahu u raadinayo in heshiis xabad joojin ah uu dhaco maxaa ka dhacaya gudaha Israel marinka Gaza maxaa ka dhax socda oo ku qasbaya in Israel raadiso xabad joojin macluumaad ayaad maqli doontaan iyadoo la filanayo saacadaha iyo maalmaha soo aadan in heshiis laga gaari karo marinka Gaza duqeymo ay Israel ka geysatay Lebanon ma waxa jabay heshiiska xabad joojinta dhinaca Hezbollah maxaa ay sameyn kartaa macluumaad ayaad ka maqli doontaan hadalka uu soo saaray wiilka uu dhalay hogaamiyihii sare ee Hezbollah Hassan Nasrallah war ayaan idinkaga haynaa maxaa kala socotaa qorshaha Israel ka dhex socda ee Yemeniyiinta lagu qorayo in ay qayb ka noqdaan ciidamada Israel si ay gacan u geystaan weerarada Israel ay la beegsanayso Xuutiyiinta maxay yihiin Yemeniyiinta raba inay la dagaalamaan Xuutiyiinta macluumaad ayaan idinkaga haynaa Ingiriiskuna wuxuu doonayaa inuu ciidamo u diro Ukraine ciidamadaasna faahfaahin ayaad ka maqli doontaan sidoo kale waxaan macluumaadkii ugu dambeeyay qasaaraha dhimashada ee sii kordhaya aad ka maqli doontaan dabka Mareykanka wali ka holacaya mar kale soo dhawaada balse intaanu guda galin barnaamijkan waxaad ka codsanayaan inaad ku soo birtaan kanaalka YouTube ee Imaan Jaamac oo kusinaya maalin walba wararkooda ugu dambeeyay iyo falanqeynba oo ay la socdaan xaqiiqooyin iyo dhacdooyinka markaasi taagan isla xilliga dhacayaan aad kanaalkan kala socon kartid intii qaybta kana fadlan like garee oo share garee lana wadaag saaxiibada aan ku horeeyay waxa la filanayaa in markii ugu horeysay si weyn oo filashaan ay u jirtaa in la gaari karo heshiis xabad joojin oo ka dhaca marinka Gaza sidoo kalena Hamas iyo Israel isku dhaafsadaan maxaabiista hadda dadaal xoog leh ayaa laga arkayaa dhinaca Netanyahu iyo Israel iyadoo barabana Netanyahu oo cid hortaagnan in heshiis la gaaro markaanse Netanyahu ayaa bixinaya dadaalo si loo gaaro heshiis xabad joojin warbaahinta Israel ayaa sida telefishinka Al Jazeera soo xigtay waxa ay ku warameen in ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu doonayo inuu ku qanciyo xubnaha isbahaysiga heshiiska suurtagalka ah ee maxaabiista la isku wadaarsanayo ee dhaqaaqa iska caabinta Islaamiga ee Hamas iyo Israel arrimahan oo kala hadlay waa la sheegay sidoo kalena madaxweynaha xilka ka sii degaya Mareykanka Joe Biden dhanka kooxda wadaxaajoodka Israel ayaa go'aan ku gaaray inay sii wadaan howlgalkooda ka soconaya caasimadda Qatar ee Doha kadib hadallo lagu tilmaami karo kuwa miro dhal ah oo laga gaaray dadaaladii lagu raadinayay heshiiska xabad joojinta ee marinka Gaza aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in Biden uu qadka telefoonka kula hadlay Netanyahu iyo diiradda saaray wadaxaajoodka ka socda Doha si loo gaaro heshiis xabad joojin in la sii daayo maxaabiista waxaana la sheegay in heshiiskaasi uu salka ku hayo midka uu soo bandhigay Biden bishii May ee sanadkii hore 2024 kaasi oo muujinayay heshiis saddex waji ah oo ugu dambeyntii ku dhamaanaya in ciidamada Israel ay ka baxaan marinka Gaza warbixinta ayaa intaa ku dartay in madaxweynaha Mareykanka uu ku adkeeyay Netanyahu baahida degdega ah ee loo qabo in xabad joojin ay ka dhacdo marinka Gaza iyo soo celinta maxaabiista iyadoo la xoojinayo gargaarka bini'aadantinimo ee gaaraya marinka Gaza aqalka cad ee Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in Netanyahu uga mahadceliyay Biden taageerada joogtada ah oo siiyay Israel inta ay ka wado duulaanka arxandarada ay ka soconayaan marinka Gaza halkaas oo lagu garaacayo bombooyinka Mareykanka dhanka kale xafiiska ra'iisul wasaaraha Israel ayaa war-saxaafadeeda soo saaray ku sheegay in Netanyahu uga warbixiyay Biden amarkii uu siiyay kooxda wadaxaajoodka ee Doha ku sugan ee Israel waxa inta uu ku daray in ra'iisul wasaaraha Israel uu mahadceliyay madaxweynaha Biden iyo madaxweynaha la doortay Donald Trump sida isaga kaashanayaan howlgalkan mustaqbalka sida hadalka loo dhigay dhanka kale la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan ayaa sheegay in heshiiska lagu sii deynayo maxaabiista si loogu bedelo xabad joojin ka dhacda marinka Gaza uu soo dhaw yahay wuxuu intaa ku daray isagoo siinaya waraysi CNN in ergeyga madaxweyne Biden ee bariga dhexe uu Doha ku suganaa in ka badan 7 si heshiis loo gaaro buu yiri mas'uulkan Mareykanka ayaa muujiyay sida uu aaminsan yahay in heshiis la gaari karo ka hor caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo dhacaysa 20 bishan Janaayo dhinaca warbaahinta Israelna waxa ay ku warameen Netanyahu la yimid aragti ah in wasiirka maaliyadda Bezalel Smotrich oo ah xagjir midig fog iyo saaxiibkiisa kale xagjirka ah ee wasiirka amniga Ben Gvir in uu ku dadaalayo sidoo uu qancin lahaa muhiimadda ay leedahay heshiis xabad joojin ah xilligan la gaaro si loo soo afjaro kala aragti doonaanta iyo dagaalka ka soconaya marinka Gaza aysan ka dhalan dawladda inay dumiyaan kadib markii ay marar badan ku hanjameen labada wasiir inay dawladda burburin doonaan oo loola jeedo xukuumadda Netanyahu inay burburi doonto maadaama xukuumaddaasi ay ku tiirsan tahay kooxda midigta fog ee labada wasiir ay hogaamiyaan
hay-adda rasmiga ah ee warbaahinta Israel ayaa dhankeeda waxay ku warantay in Netanyahu cadaadis saarayo Smotrich oo wasiirka maaliyadda xagjirka isagoo kala hadlaya suurtagalnimada heshiiska uu taageerayo qorshayaasha xukuumadda Israel ee daanta galbeed. Netanyahu ayaa kulamo la yeeshay dhowr wasiir oo ku jiro Ben Gvir wasiirka amniga midigta fog iyo kan kale ee maaliyadda Smotrich oo isna midigta fog si uu soo bandhigay horumarka laga gaaray wadaxaajoodka kadib markii uu u diray madaxa hay'adda sirdoonka Israel Mossad iyo hay'adda kale ee sirdoonka ama adeega amniga gudaha Israel Shanbit oo weheliyaan la taliyaal dhinaca siyaasadda iyo ciidamada kuwaas oo ku sugan Dooxa. Waan markii ugu horeysay oo la arkay Netanyahu oo dadaal aan horey loo arag ku bixinaya sidii heshiis xabad joojin loo gaari lahaa isagoo hadda ku qancinayo kooxda midigta fog inaysan dowladda burburin haddii heshiis soo afjaray dagaalka Gaza la gaaro. isla wararkii dhinaca Israel intaanu ka bixinna waxaa socda dadaallo ay Israel ku raadinayso in ay koror u qaado dadka Yemeniyiinta ah ee ka mid noqonaya ciidanka Israel si ay gacan uga geystaan baa la yiri dagaalka ka dhanka Xuutiyiinta Yemen. xilli Xuutiyiinta Yemen ay noqdeen kooxda kaliya ah ee Iran ay taageerto ee hadda la dagaalamaysa Israel iyagoona joogtay weeraradooda gantaalada plastigada ah ay ku qaadayeen gudaha Israel iyagoo markaa beegsanaya saldhigyo iyo xarumo kale oo amni oo gudaha Israel ah. taas iyadoo laga duulay ayaa hadda la sheegay Israel inay sare u qaadayso kooxda Yemeniyiinta ee ka mid noqonaya ciidamada Israel. agaasinka guud ee hay'adda sirdoonka militariga Israel ayaa la sheegay hadda inuu shaqaaleysiiyay daraasiin Yahuud Yemeniyiin oo si fiican u yaqaan lahjada Carabiga ee Yemanta ay ku hadasho si ay u taageeraan howlgallada ka dhanka Xuutiyiinta Yemen. sidaa waxaa ku waramay shabakada wararka Israel ee Kan News oo sidoo kale soo xigatay Al Jazeera iyo wargeyska Israel ka soo baxa ee Jerusalem Post. askarta la shaqaaleysiiyay ayaa iskugu jiray dad dhawaan ka soo guuray Yemen oo ah Yemeniyiin balse Yahuuda iyo shakhsiyaad kale oo ku koray guryo afka Carabiga looga hadlo asalkoodu inuu yahay Yemen. sidoo bixinta lagu sheegayna waxay ciidamada Israel ka caawin doonaan aruurinta sirta iyo inay fikrado muhiim ah ka bixiyaan luqadda iyo dhaqanka Yemen si ay ugu fududaato ciidamada Israel howlgallada ka fulinaya gudaha Yemen inay howlgallo waxtar ah fuliyaan. dhinaca Lubnaanna diyaaradaha Israel ayaa weli sii wada duqeymaha ay ka geysanayaan gudaha dhulka Lubnaan haddii xataa bishii November la gaaray heshiis xabad joojin ah oo sabab noqday in Hezbollah joojiso weerarada ay ka geysanaysay gudaha Israel. balse heshiiskaasi ma joojin Israelna waxa ay ka geysanaysaa gudaha Lubnaan weeraro. ciidamada Israel ayaa hadda soo bandhigay inay weeraro duqeymaha ay ka geysteen dhowr goobood iyagoo ka duulaya xogta sirdoon. goobaha ay bartilmaameedsadeen ayaa waxay ku sheegeen inay ku jiraan goobaha gantaalada Hezbollah ay ka soo tuuraan ee gudaha dhulka Lubnaan, saldhigyo ciidan iyo wadooyin ku yaala xuduudda Syria iyo Lubnaan ay wadaagaan oo ay ku sheegeen inay yihiin goobo hubka looga soo gudbiyo Hezbollah. ila dhanka ammaanka ayaa sidoo kale u sheegay raadiyaha ciidamada Israel ay weerareen xuduudda u dhaxaysa Lubnaan iyo Syria si baaliyari looga hortago in marinadaasi ay dib u adeegsadaan Hezbollah. xilli Hezbollah weerar kala kulmaysa Israelna ay jabisay heshiiska xabad joojinta oo si wada weeraradeeda ayaa wiilka uu dhalay hogaamiyihii la dilay ee ururka Hezbollah Hassan Nasrallah waa Mohammed Mahdi Nasrallah oo ka mid ah wiilasha dhalay xogihii guud ee Israel ay ku dishay duqeyn ka dhacday koonfurta Beirut ee Hassan Nasrallah ee ururka Hezbollah ayaa markii ugu horeysay soo bandhigay muuqaal isagoo markaa ku dhawaaqay hadal liyaab leh oo ku sheegaya inuu doonayo inuu iska fogeeyo dhaqdhaqaaqyada Hezbollah iyo arrimaha siyaasadda ee ururka Hezbollah. soo taa badalkeedana ku nuxnuucsaday inay ka go'an tahay inuu diiradda saaro daraasaadkiisa diinta iyo sidiisa gaarka ugu taageeri lahaa dadkiisa. tani waxaa dabcan laga yaabaa inuu ku raadinayo Mohammed Mahdi inuu helo dhaqdhaqaaq xor ah iyadoo aysan Israel ama hay'adaha kale ee sirdoonka galbeedka beegsanayn aysan u qaadanayn nin loo carbinayo hogaaminta Hezbollah. balse markii la tixraaco isla Nasrallah wiilkan dhalay talaabooyinka Nasrallah qaaday ayaa tan hadda wiilkiisa u qaaday la mid ahayd isagoo markii hore diiradda saaray daraasaadka diinta iyo inuu wax badan ka barto dhaqanka. tan hadda dhinaca Israel falcelinada ka bixiyeen hadalkan wuxuu ahaa Mohammed inuu ku socdo isla wadadii Hassan Nasrallah ee uu doonayo marka hore inuu helo dhaqdhaqaaq furan oo ku socon karo isagoo aanan wax walwala ka qabin weerar inuu la kulmi karo. laakiin ma cadda tan inuu uga baxsan karo bartilmaameed inuu noqdo Israel. taasi oo dabcan ku xiran hadba waxay ka arkaan hab dhaqanka iyo qorshayaasha Mohammed Mahdi Nasrallah. dhinaca Ingiriiskana ciidamada Ingiriiska ayaa ku dadaalaya baa la yiri inay tagaan Ukraine haddii xataa heshiis xabad joojin la gaaro iyadoo ujeedadana laga leeyahay baa la yiri inay qayb ka noqdaan howlgalka nabad ilaalinta haddii la soo afjaro dagaalka oo xal dhammaystiran la gaaro si loo xog haye ama wasiiradii difaaca hore ee Ingiriiska ay u sheegeen wargeyska Ingiriiska ka soo baxay Telegraph. ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa lagu ramay inuu qorsheynayo inuu boqdo Kiev
si ugala hadla baa layidhi sidii ciidamada Britain ama Ingiriiska loogu diri lahaa haddii ay dhacdo xabajoojin gudaha Ukraine. Hogaamiyaha Ukraine Zelensky ayaa xaqiijiyay inuu arrintan kala hadli doono ra'iisul wasaaraha Ingiriiska intuu socdo kulankooda. Ciidamada Ingiriiska ee gacanta ka geysta nabad ilaalinta kadib dagaalka waxay shaki la'aan noqon doontaa tallaabo soo dhaweyn leh, laakiin waxay si dhib yar u xaqiijinaysaa waxa ay Ukraine runtii u baahan tahay, ayuu yidhi xogigii hore difaaca Ingiriiska ee xilkan hayay intii u dhaxaysay 2023 iyo sanadkiina soo dhaafay 2024. Ugu dambeyntiina dabka ka holcaya Mareykanka ayaa weli sii holcaya iyadoo digniino kalena ay soo baxayaan oo laga cabsi qabo inay dabeelo xoogan ku dhuftaan gobolka California, gaar ahaan Los Angeles oo halka qasaaraha weyn uu ka dhacay oo dabku u geystay welina uu dabku ka sii shidan yahay. Tirada dadka ku dhintay dabkan xoogan ee ka kacay gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa hadda kor u dhaaftay 24 qof, halka agaasinka waaxda gurmadka degdega uu sheegay in xubno ka tirsan ciidamada Mareykanka ee heleen awaamiir ay ugu diyaar garoobayaan inay ka qayb qaataan ka hortagga masiibadan, maadaama mar horeba Mareykanka gudihiisa looga arkay dhacdadan mid ugu qasaaraha badnayd iyo dhacdadii ugu sareysay ee burbur weyn Mareykanka dhexdiisa ka geysanaysa. Kooxaha dabdamiska ayaa weli sii wada dadaaladooda iyagoo ka hortagaya in maalmaha soo aadan oo waaxda saadaasha ay sheegayso in dabeelo xoogan ay ku dhufan karaan Los Angeles inay dabeelahaasi ku soo gaaraan xilli dabku weli holcayo. Ugu yaraan 2 goobood ayaa la sheegay weli dabku inuu ka sii shidan yahay uu ka holcayo. Madaxweynaha la doortay ee Donald Trump ee Mareykanka ayaa isagoo hadlaya waxa uu sheegay in fashil weyn ay dowladda hadda xilka ka dhigayso ay ku dhamaysanayso xukunkeeda. Wuxuu cadeeyay hadda in musiibada ugu weyn ee Mareykanka ay dhexda uga jirto, isagoo ka falcelinaya dabka ku dhuftay Los Angeles. Wuxuuna sheegay hadda inaysan jirin awood la sheegi karo oo dowladdan ay soo bandhigtay ama Mareykanku soo bandhigayo dabkaasi looga hortagayo. Khatartuna wuxuu sheegay in tahay mid sareysa masiibana uu Mareykanka dhexda uu ugu jiro sida uu cadeeyay. Walwalka hadda la qabana gudaha Mareykanka waa in xaaladan ay sii jiri doonto maadaama laga dhigayo dabeelo xawaare dhan 110 kilomitir ku soconaya saacadiiba. Ilaa hadda 150,000 oo qof ayaa la sheegay in la siiyay awaamiir dadgurayna, xilli in ka badan 100,000 oo qof xilli horeba ay guryahooda burbureen oo ay ka carareen Los Angeles, taasi oo sare u qaadi karta tirada dadka ku barakacay dabkan. Barnaamijkii ayaa intaasi inooga hadduu eebeedmo intuu barnaamijka xiga ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaas iyo amaana Allah.